jeclayda jihaad gala jihaad gala akhriyo jiritaan xubnimo jihaad gala jihaad gala gobolka Hiiraan ayaa martigelinaya hawlgallo ballaaran oo hogaaminayaan ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 163aad guutada 16aad ujeedka hawlgalkan ayaa ah in la burburiyo goobaha iyo godadka kooxda qawaariijta ay u adeegsanayso gabaadka baabulka iyo qorsheynta falalka amni darrada hawlgalkan ayaa lagu fuliyay weerar iskugu jira duqeymo cir iyo kuwa dhul kuwaas oo si sax ah loogu bartilmaameedsaday goobihii lagu tuhunsanaa inay ku dhumaalaysanayaan kooxda qawaariijta hawlgallada noocan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ee lagu weeqayo awoodda kooxda qawaariijta iyo xoojinta amniga deegaanada gobolka Hiiraan ciidamada kumaandooska danab oo si taxaddar leh ugu socda deegaanada hawlgalka ka socda ayaa baaritaano ku sameynaya goobaha la adeegsaday si loo xaqiijiyo in meesha laga saaray khatar kasta oo amniga wax u dhimi karta hawlgalkan ayaa waxaa si toos ah u hogaaminaya taliyaha ururka 163aad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaale Maxamed Bashiir Cali Barqale kaasoo ciidamada ku hogaaminaya furimaha hore isagoo xaqiijinaya qorshaha lagu ciribtirayo kooxda qawaariijta argixisada iyo sugidda amniga guud ee gobolka ciidamada kumaandooska danab ayaa sii wada hawlgallo qorsheysan oo ka socda qaybo kala duwan oo dalka iyagoo u taagan difaaca shacabka iyo ilaalinta qaranimada iyo xoreynta deegaanada ay weli ku sugan yihiin kooxda qawaariijta argixisada محمد عبد الرحمن الصومالي عدك ciidamada kumaandooska danab gobolka Hiiraan akhriyo jiritaan xubnimo jihaad gala sooma jeestayaashii ushu way jeclayda jihaad gala jihaad gala akhriyo jiritaan xubnimo jihaad gala jihaad gala